السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan. Halkan waa akademiyada bulsho, anigana waxaan ahay Aftaa Xuseen Aftaa Bulsho. Kusoo dhawaada mar kale iyo casharadeen taxana ahaa maadada ama koorsada computer basic. Casharkana maanta insha Allah tacaala waxa uu ku saabsanaan doonaa hadii la yiraahdo folderka iyo fileska iyo sidoo kale sida aan backgroundkan ama desktop backgroundka u bedel lahayn dhamaantood waa aan sameyn doonaa iyo sidoo kale taskbarkan iyo shaqadiisa. Haddaba kusoo dhawaada muuqaalka. Isoo noqod wanaagsan. Fadlan haddii ay tahay markii ku horeysay oo halkan aan ugu soo booqatay, ha iloobin inaad janaalka subscribe saartid isla markaana gambaleelka aad furated. Sidoo kale u shargalay saaxiibada si uu muuqaalku u gaaro. Waa mahadsantiin. Marka ugu horeysa waxaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan ka hadlo waa maxay folder, waa maxay file. Folder maxaa la dhahaa, files maxaa la dhahaa. Folder waxaa la dhahaa waa object kaasi oo ka kooban multiple documents ama dokumentiyo badan ka kooban. Macnaha waa shay ay ku sii dhex jiraan shayal kale ay ku sii dhex jiraan. Kaasa waxaa la dhahaa folder. Sidoo kale file ayadana maxaa la dhahaa, file waxaa la dhahaa waa documents, waa asaga waa documents which has been created kaasi oo la abuuray using different software applications. Anagoo software application kala duwan isticmaalayna sida Word key, Excel sheet key iyo dhamaantood wax allaah wixii document oo la qoro nooc raba ha noqdaan. Kaasna waxaa la dhahaa file ayaa la dhahaa. Marka folderka waa shay si guud sida kan oo kala hadda waa folder waay. Haddii aan soo furo gudaheedu files ku dhex jiro. Haddaba waxaan rabaa inaan tusaale la yiraahdo sidee loo abuuraa folder, sidee loo sameeyaa. Okay, si aad folder u sameyso horta halkan desktop-kaaga imow. Kadibna qaybtan aad u jeedid banaanka ah ma aha halkan banaankan imow, right click dheh, kadibna waxaa tagtaa new dheh, kadibna waxaa dhahdaa folder. Okay, inta markaa dhahdid sidee folderki marka hadda waxay ku imaanaysaa si oo default ah, waxay ku imaanaysaa new folder. Hadda new folder ay ku imaatay. Marka folderkan ayaa waxaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo aan magaca ka bedelo. Okay, si aan magaca uga bedelo marka ugu horeysa marka abuurto horta waa ka bedeli kartaa. oo tusaale ahaan marka right click aan dhaho new aan dhaho kadibna aan dhaho folder aan dhaho uu i calaamadeynayo hadda wuxuu leeyahay folder 2 oo new ayaa abuurtay. Markaas ka bacdi magaca waa ka bedeli karaa oo markaas waxaan dhihi karaa Bulsho Academy aan dhihi karaa tusaale ahaan. Okay, kadibna meel banaan halkaan click ku dheh. Marka aan sameeyo oo markaas hadii aan xasuusan waayo oo kadib aan rabo inaan magacii ka bedelo maxaa sameynayaa, waa dul tagayaa kadibna right click ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay rename. Kadib magaca aan rabo ayaan ku qorayaa tusaale ahaan academy aan ku qoray ama waxaan ku qoray education aan ku qoray. Kadibna laba mid baa sameyn kartaa inaan muuska banaanka click ku dhaadiyo inaan enter dhahay click aan ku dhahay meesha. Hadda marka waa kuwan labadii folder aan sameynay, laakiin haddii aan furno gudahooda waxba kuma jiraan, wax document wax file wax ku jira male. Okay, marka waxaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo ka waran sidaan haddaan rabo inaan tiro sidaan u tiraaya. Waxaad sameynaysaa waa dul tagaysaa right click ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay delete. Okay, waa tiri kartaa. Marka delete daadid su'aal ku weydiina are you sure you want to move, marta inaad tirtid folderkaaga recycle bin ka u dirtid kadibna yes daadid oo tiri. Okay, waxaan rabaa inaan folderkan copy-yeeyo rabaa. Marka tiritaanka waxaa kaloo dhigi kartaa keyboardka ayaad waxa ka isticmaali kartaa inaad calaamadda delete-ka aad dooratid. Ayadana waa sidaas haddaan no dhahdid waxa miska bedelaa waa sidoodii. Okay, hadda waxaan rabaa inaan folderkan waxaan rabaa gabi ahaanba aan copy-yeeyo rabaa. Si oo copy-yeena dul tag right click dheh kadibna waxaa dhahdaa copy. Kadibna halkan imow right click dheh paste dheh. Hadda wuxuu sameeyay laba xabo, midna copy waa tii aan copy-yeeyo tan waa tii saxdeed oo marka hore. Okay, good. Laakiin inta tan ku jirto tan waa ku jirtaa. Okay, magaca daarto waa ka bedelan kartaa haddii kale si ku dhaafi kartaa. Okay, midaas marka waxaad sameynay inaan folder abuurnay, inaan folderka magaca ka bedelnay, inaan folderka aan tirnay, inaan folderka aan copy-yeynay. Sidoo kale aan ku copy-yeyn karaa hadda aan tiro. Sidoo kale aan ku copy-yeyn karaa waxaan kaloo ku copy-yeyn karaa dooro kadibna control C de control V de hadana adoo isticmaalayo keyboardka waa kuwana. Okay, habkaas waa habka folderka loo abuuro isla markaana folderkii la abuuray loo tiro. Okay, aan iska delete gareyno anoo keyboardka isticmaalayno delete aan dhahno kadibna aan dhahno. Okay, tan kale waxaan rabaa inaan desktop-kan aan colorka ka bedelo ama change background-ka inaan ka bedelo rabaa. Horta waxay ogaataa waxyaabaha meesha saaran waxaa la icons.
shaashadan inta ay ku fadhiisana waxaa la dhahaa desktop. horta taas aan kala ogaana desktop iyo icons waxaa ka dhexeeyo. icons waa kuwan, desktop kana waa shaashadan intaan dhan waaye. okay good. marka waxaan rabaa inaan kalarkan bedelo hadda ii saaran ee buluuga ah sida taleefankaada oo bedeli kartid background-ka kuu saaran ama sawirka kuu saaran kana waa bedeli karnaa. waxaan tegaynaa meel banaan cidlaan tegaynaa right click aan leenahay kadibna waxaan leenahay personalize aan leenahay. personalize markaan dhahno waxaan kasii tegaynaa haddii aan meelaha aan joogno oo kale waxaan sameynaynaa waxaan dooranaynaa noocaan rabno. hadda kan ayaa ii saaran sooma. okay hadda kan ayaa ii saaran haddaan tiro oo kaasaan ka dhigi kaasuu noqonaya. haddaan oo kaasa noocaas waaye. haddii aan kan dhaho noocaas uu noqonaya. marka maxaa sameynaa double click aan leeyahay. double click kan kuu saaran halkaan soo maraya. marka oo soo hormaraya. hadda kan fiiri double click aan dhaho. markaan double click dhaho u horeeyo noqonaa halkaan saaran intan waa ka arki kartaa. kadibna waa ka bixi kartaa oo haddaad minus dhaho waa kana halkaan saas u ahaa. kolka horena blue aan noo saarnaa. qaabkaas waa u bedeli kartaa. haddii aan u baahdo inaan sawir ani aan leeyahay gudaha aan kasoo qaado soo saartane qaybtan browserka anoo joogno ayaan tegaynaa. markaan tagno tusaale ahaan calaamada USR-ka rabaa inaan saarto kadibna waxaan leeyahay use the picture. kadibna si automatic asaga ayaa usoo qaadan doona oo waa kana. marka inaad background-kaaga aad bedeshid ayadana habkaa samayn kartaa. sawir aa leedahay iyo sawir adiga aadan lahayn. okay xaggaan tagana marka waxaan ana right click personalize aan dhahnay. kadibna shaashada ugu horeyso noo imaanaysa hadda kana noo saaran noo bedel keeni nagu celi. double click aa leedahay laba mar oo boobsiisa click aa ku dhaysaa. kadibna hadda haddaan ka laabto waa kaasaa. okay taasna waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qaabka oo background-ka sawirka loo saaro iyo sawirkii looga bixiyo. sidoo kale waxaa jirto waxa la dhaho ayadana taskbar. taskbar usad waxaa lahaa midkaan lahaa hoostana ayaa taskbar lahaa. asagana muxuu yahay? asaga wuxuu yahay waa saddex qayb ay kooban yahay. qaybtan waa start bottomka oo markaas aad u furtid dhammaan software-adii iyo waxyaabaha u baahan dhan ayaa halka kaa soo bixi doona dialog box-kan. qaybtan dhaxana waxaa la dhahaa waa qaybta folderada ayaa loogu talagalay iyo waxyaabaha aad furtid ama adiga aad biyan ahaan u saaratid inay halka kasoo muuqdaan. oo hadda folderkan oo ujeedaa folderkan intuu ku jiraa. marka haddii aan taa dhaho aan kan aan click ku dhaho waa kana intuu soo fuulaya. okay waxyaabahan furan hadda kan uu ii furan yahay waa kaasaa. kan uu ii furan yahay waxyaabaha furan ayaa halka kaa soo muuqan doona marka kugu imaan doono. okay haddaba waxaan rabaa qaybta u dambeysana waa notification area lahaa. flashka kasoo muuqanayo security kasoo muuqanayo waxaana waa notification area la areadan. marka saddexaas qayb ka kooban yahay. asaga ayaan wareeji karnaa waa weyneyn karnaa waa yareyn karnaa waxaan rabnaa ku samayn karnaa. okay maxaa sameynaa? halkaan aan taga right click aan dhaho hadda logga aan ka bixiyo. marka logga ka bixiyo left click aan qabanaya. anoo left click ahay ayaan derbiga ku dhejinaya. hadda maxaa sameeyay qaybtii hoos waa raray oo halkaan ayaan u raray. haddana left click aan qabanaya korkaas anoo hay geynaya. kadibna waa sii daayay. kadibna haddana waa qabtay meel banaana laakiin waa ina qabata halkaan keen. okay kadibna waa qabtay haddana left click intaa keenay. marka meelaha kale kaamu yeelay inaad qabatid laakiin meelaha banaanka qabo. sidoo kale option kale waa samayn kartaa. right click intaa dhahayd inaad taskbar settings aad tagtid. markaa taskbar settings aad tagtid qaybtan ay bottom ku qoran tahay haddii aan hadda right ka dhigo midig ayuu fuulayaa. haddaan ka dhigo top kor ayuu tagayaa. haddii aan ka dhigo left bidix ayuu tagayaa. haddaan bottom ka dhigana qaybtii hoose ayuu tagayaa. halkaasna ayadana waa kasoo bedeli kartaa. sidoo kale waxaa jiro in taskbarkan markuu rabana uu kusoo baxo markan asaga uu isqariyo. sidee loo sameeyaa? dul tag right click dheh kadibna taskbar settings tag. markaad tagtid qaybtan ugu horeyso automatic taskbar mode ay ku qoran tahay on hadda ka dhigo asaa isdimin doono ama ka bixi doono hadda ujeedin. marka area ay badan asaa soo kici doono. marka ka tagana asaa bixi doono. hadda taskbarka waa qarsay laakiin marka meeshan tago automatic asaa soo bixi doono. taskbarkan haddaad tina si isku celisid right click dheh kadibna hada taskbar settings kadibna qaybtan on ta ka dhigto off ka dhig bis. okay intaasna ayadana waa inta ugu muhiimsan oo hadda taskbarka saa ujeedid shaqadiisa ay tahay. marka saana ku ahaado loogaasna iska gasho. marka waa kaasaa. okay casharka inuu dheeraado ma rabo. casharo kale ayaa insha allahu tacaala kusoo qaadan dhigna kuwa noo haray. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna casharkeeni taliinta kulmi doona casharadeena xigo. waxaa idinku dhaafaya nabadgelyo.